maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ayaa maanta u fariisatay dhageysiga 5 eedeysane oo xeer ilaalinta maxkamaddu ay ku soo oogtay inay ka tirsan yihiin al-shabaab isla markaana laba ka mid ah laamaha amniga magaalada Jowhar ay ku soo qabteen iyagoo sida miino iyo bistoolad Belgium ah xilli ay ku sugnaayeen gudaha magaalada Jowhar. 5 eedeysane ayaa lagu kala magacaabaa Axmed Sheekh Cali Nuur, Xasan Cabdi Gacal, Xuseen Xasan Nuur, Maxamed Macalin Xuseen Raage iyo Jaamac Nuur Gareemow. markii maxkamaddu gudoomiyuhu daafuray su'aalana la hordhigay eedeysanayaasha ayaa labadan ruux ee lagu kala magacaabo Axmed Sheekh Cali Nuur iyo Xuseen Cabdi Gacal waxa ay maxkamaddu ay ka horqirteen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyo waxyaabaha qarxa ee lagu soo qabtay. xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad Maxamed Cabdiqaadir Maxamed ayaa soo bandhigay eeda loo haysto 5 qofood ee maxkamaddu ka soo muuqday iyo hubka lagu soo qabtay. dhamaantood marka laga tago Xasan Colaad afarta gawaadad deegaan ah inta badan ku nool deegaankan aqoonta deegaanka u leeyihiin iyo aqoonta bulshada ay u leedahay aaminaanta la aaminayna shabaabada ugu faa'iideysanayeen khatar fara badan iyo dhibaato fara badan inay dadku ku dhibaateeyaan. Axmed Sheekh wuxuu ahaa shaqada ninka madaxda ka ah joogay magaalada kuna soo degayeen alaabta loo keenay qaraxyada martigelinayay. eedda sida ku xusan isla jaamac ninka la yiraahdo oo Axmed ku xigana wuxuu ahaa ninka Axmed hoos tagay oo Axmed wixii loo keenay fulinayay ayuu ahay. ninka la yiraahdo Maxamed iyo Xuseenna waxay ahaayeen rag iyagana caawiyaal u ah ninka la yiraahdo Axmed Sheekh. sidaas daraadeed marka shabkadan sida argagixisada unugyadeeda ee u dhisto ayay marka koowaad ay u dhisan yihiin. argagixisada unugyada 4 ilaa 5 ka badan isma yaqaanaan, intaas ka badan la isma baro. sidaas daraadeed halaha waa hal unug oo ka mid ah unugyadii magaalada ku dhibaateyn jiray bulshada. sidaas ayay ahayd. haddaba waxaan inaan ku gudagala waxa xafiiska xeer ilaalinta uu rabo inuu soo bandhigo. mudane gudoomiye garsooreyaal bastooladan u jeedaan waxaa lagu soo qabtay Xasan Colaad asagoo magaalada Jowhar dhexdeeda ku wato ku hubeysan madiidana waa qiraal bastooladaasoo bastoolo shabaab ay leeyihiin. rag fara badan ilmo fara badan agooma ay ka dhintay lagu laayay ayuu watay. xasanna waxaan aaminsannahay inuusan ahayn keliya nin qaraxyo dhigee waxa uu ahay haddana amniyaad oo bastooladaas ay ku adeegan jireen. waxaa halkaa kusoo bandhigayna taleefanadii iyo jiisyadii qaraxa ay ku dhibaateyn jireen dadka si caddeemo buuxa ay u noqdaan. mudane gudoomiye meeshaas waxaa ku jiro waa fiyuus loogu talagalay in wax lagu qafiyo. kani waa moobilkii loo adeegsanaya qaraxa looguna talagalay in lagu dhibaateeyo dadka. isagana wuxuu ka mid yahay caddeemaha xafiiska xeer ilaalinta soo bandhigaya. koolada waa tii loo isticmaalayay qaraxyada isku xirxirkeeda. taleefanadaas iyo dhammaan waa taleefanadii ay isticmaalayeen ragga meesha jooga oo maanta xafiiska garsoorka hortaagan. qareenka difaacayay eedeysanayaasha ayaa codsaday 3 ka mid ah in xabsiga laga sii deeyo isagoo cuskaday qodobadan. wakiilintayda Xuseen Xasan Nuur waa muwakkilkayga saddexaad ee xafiiska xeelaalintu markooda ku soo eeday qodobka 41. muwakkilka kale Maxamed Macalin Xuseen Raage asla sidoo kale oo ku soo eeday qodobkaas. Jaamac Nuur Gareemow asla sidoo kale isla qodobkaas waa u laatiku xafiiska xeelaalintu ku soo eeday. saddexdaas xafiiska xeelaalintu qodobka ku soo eeday badaadanba qodob qabanayo ma ahin mana gelin. ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad Maxamed Amiin ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda. dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysanayaasha kale ah Axmed Sheekh Cali Nuur
laba xasan cabdi gacal saddex xuseen xasan nuur xuseen shurow afar maxamed macali xuseen raage shan jaamac nuur gareemow halkaan ayaa ku gabagabeynay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto